والصلاة والسلام على طه الأمين في كل وقت الواحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفتحبوا كاعو ودل إيا دبد بإيدين كالسلام يساو مدري جبوتي. ما أنت أو سبتيا بشو أي تهي لبيو طبان بشي سقالات لبادكم إيا لباتنك وحد علي قريق أمدا سبتك قريق أمدا هرتيدا ayaa waxa lagu soo ururiyay dad lagu magacaabay bulshada rayidka waa garanay bulshada rayidka laakiin baa saaran calaamatu su'aal baa saaran socodkaasi waxa la yiraahdaa waa dhalintii waa jenesku waa kuwe jeneska la soo bixiyay maanta ee la doonayo in rayiga ummadda lagu dhalan habaabiyo muxuu yahay sawirada videogana waa idila daawan doontii reejibuto isha macallin ay tidaahaa Soomaalidu ragga halka ku jira ee kamid ah bulshada rayidka lagu tilmaamay waa ciidamada gaardakoodka iyo jeerta waa ciidamo beeleed waanad ka arki doontiin maxaa qadaadka u wada xiiray maxaa taalooga u gooyay maxay u wada safan yihiin de way gaardinayaan ha ciidanka gaardin baa lagu yiqiinay maantana bulshada rayidka lagu soo daray oo la leeyahay waa dhalintii dalka jeneski ayaa socod nabadgelyo ah ku dhaqaaqday waxa ayaa ka dambeeya waa aqligii caaq Ismaaciil maxay Soomaalidu tiraan wanku maalinta la qalayo on buucirka arkaa tiiba kugu soo socota de ummadan aad doonayso inaad dhalan habaabiso amba aad jahwareeriso Cosby Show baan ku bixiyaan caawa waxaan ku leeyahay Cosby Show ma garan waa 9 jirde Cosby Show aakhirkiina halkuu ku dambeeyay jeel buu ku dambeeyay isaga falxun baa lagu qabtay laakiin adna fawaaxishkan iyo beentan iyo tacadigan iyo dhagartan iyo dambigan aad umada reejibuuti ku haysad ku katiinadaysan tahay deedna od katiinad ku mudan marka maanta bulshada rayidka ciidanka aad soo saftay ee jeerta ah iyo gaardakoodka waa ciidan beeleed labadii nin ee adeerka u ahayd وعايسكي عماغان دماغان وعايس سبقله يا كي كله مارفين جاي طلابه ciidankoodii weeyaan de waxaad garada cad soo xidhay ee umada ku soo dhexdartay dadkan aad umada dhex keentay waa ciidankii od leedahay waa bulshadii rayidka iyo afar dumar ah iyo afar caruur oo dhalinyaro ah oo bulshadii rayidka reer Djibouti marka runta ka hadalno ilaa Djibouti waa la iswada yaqaanaa Djibouti waa afar qolo waa la iswada yaqaanaa العاقل يفهم بالليل عندك وقرال لو يا دتك الرجبوتي وحول بي أركيان وحول با أي أركيان ودوني سينا دو قوسيس لكن وح قوسي يا ما أنت مجران وحول بصدا رارتا لو أركا عيبتيني فول حمديني فواحش كيني كل والله أركي عادي كانوا وحل جوجولي ودكتور جيم أوفا بالجولي ciyaartii way dhamaatay baa lagu yiri filimkii uu dhamaaday baa lagu yiri musalsalkii uu dhamaaday baa lagu been waad dhamayseen nooc walbaad been ku sheegteen sijeed iyo soo jeed been baad ku sheegteen ariyeer baad wada gasheen horay baad u socoteen si walbaad isku daydeen inaad ummadan wali been ku sii maamushaan de wax dhacaya ma aha horumarka aad sheegida waa shoomeerka candhada dhulka ku haya shoomeerka dhalinyaradii Djibouti jaamiciinta ahayd kuwan jiifa guryaha marka maanta waxa aan lagugu soo baxayad bulshada rayidka la soo saaray aad u tiri ee ciidankii u soo dareerisay Soomaalidu waxay tiraa waxlay waxeedii madayso waxa weeyaan waa waxaad barateen waa baaskiina waad barateen waxaad barato waa baaska bay Soomaalidu tiraa afartuna maxay tiraa barteeni mi butagibdi wax la bartay waa baaska barteeni mi butagibdi waayo waxa weeyaan waxa waad barateen ma daynaysiin waad ku mabteen qofku markuu mabo inuu mar walba ummadiisa jahwareeriyo inuu ummadiisa been u sheego inuu ummadiisa baadi haleeyo de waa waxaan oo miira waa ummadan masaakiinteed bacadka u soo saarteen maanta leedihiin ciidankii wadanka bulshadii rayidka noqday war ciidanka waxa loogu talagalay inay dhulka gaardiyaan inay dhufaysyada ku jiraan inay waajibkooda ka soo baxaan ma aha jeertan iyo maaragtay republicaankan aad samaysatay ee ciidan beeleedkay rag aad adeerka u tahay aad u dhiibatay
dee raggaada adeerka u tahay qaran ma daafacayaan anu taasaan ku leeyahay amba diidan badoon meeshani waa qaran qarankuna hadduu qarannimada ka baxo waa dambarsan waxaad ka heshaan annaga waxbaa naga siin adaa silban oo siiban adaa silban oo siibanne waxaad ka heshaan annaga waxbaa naga siin laakiin waxaan u sheegayaa ummadda reer Jabuuti filinka maanta waad aragteen ma anu maxaan idin yidhi sabtiday soo baxayaantii waa taade maanta hajeertii loo soo mooleeyey gaar republikaankii loo soo mooleeyey xoogaa kaloo militariya lagaga soo daray arbashal badowde waa idinka arkaya la doonaya rayal caamka in laga yidhaaho bulshadii rayidka madaxweynaha rabta xisho 4 maandaabaad qaadatay adduunka lama aragoo lama maqal adiga hortaa asaagaa way kaa wada yaaceen kuwii sidaada ahaa halkay ku dambeeyeen waad ogtahay intii fayoobayd ee madax ahayd adiga kula mid ahayd farahay kaa taageen way kaa yaaceen kuwii adiga sidaada ku hal adeygay caaqilan markaa tahay waa hal adeygii aan kuu sheegay ee ku adkaadayna halkay mareen waad ogtoo marag bad ka ahay media u dambeeyay kii Suudaan baa u dambeeyay cid kale maan ku doorsanaynaa sidaada looga heesay Khartoum waad ogtahay maanta halkuu ku jiradii de adiguna raad ka dambe waa adiga taas way shaki la'aan waanad ogtahood ku fadhidaa marka maxaa dadka u jahwareerin Cosby Show iska daa Cosby Show nimad Cosby Show ayaad ku dambayn xaalka Cosby Showna waad la socotaa in badan buu dadka ka qosliyay in badan buu riwaayada jiray aakhirkiina falfal xun baa loo geystay ayuu geystaa leeyo 9 jir buu jeelka ku galay adiguna been iyo dhac iyo boob iyo dil iyo dhagar ayaad ku galay jeelka 9 jir yes Cosby Show waa intaa aqli ku qabtay ma jiro ciraabana ma lihid hal adayg baad wax ku dhigtay oo caaqbaad tahay wixii aad oo arkaya inay khalad tahay bad ku sii dhiiran tahay waa waxa maanta dhacayde waa waxa maanta dhacay darkiisa reer Jabuuti oo ka dhigayo dadku inay iyagu soo baxeen bariyahanba waa laga shaqeynayay bariyahanba erbebeeyada la dhex wareegay bariyahanba waa la bixinayay lacag bariyahanba shandad baa la wareegay laakiin dadka cuna wixii ni weeyaan qaata laakiin raygiina iyo damiirkiina ha bedelina dalkan illa dumiyaa la doonayaa maandaaga shanaadi waa beeniya balanbalkeena waxba yaan been leeynoo sheegin maanta aad arkaysaan dalku halkuu marayo xaalka aan ku sugannahay dhibaatada dadkeena haysata kooraan la'aan biyo la'aan shaqo la'aan caafimaad la'aan waa maxay waxa la sheegayo waa maxay Dacaaq Ismaaciil ee adiguna caawa telefisoonkii u soo hor fadhiisatay idaacadaadii uga hadlaysay la idaacadaada wax kale ma sheegtay amaantaada un baad u furatay wax kale ma aha in adiga lagu amaano eta baralolo to proclamer la amaano afarta kula sanfiyana le atiraahin eleeligtiya mashxarada ii jiibiya wacaynkan wax kale ma jiraan wax allaaliyo wax kale oo jira oo ummadda aad u sheegayso oo ka dhaxlaynoon xumaanahayni ma jirto marka maxaad anaga noo sheegay waxba nooma sheegaysidee bulshada rayidkuna waa ciidankiide marka al-aqal yifham horaa lagugu sheegay waad soo dhiirantoo waad soo xaydan tahay layma oran karo kursigan baan caashaqoon ku dhiman daya ka yeelayo ka aqli xunadi maanta dad u liite aday ku haysataa maanta taadi oo og tahay oo waliba is soo adkaynaysa oo soo mataxaysa oo nin jira aad iska dhigaysa ataqilla khaf min rabbak raran bad ku taaganta waad is og tahay halkeed isla adkayn halkeed iska dhignin waxayo wax talinaya lagu taliyay marka ummadda reer Jabuuti baa doonaysa in iyagana si khaldan loogu taliyo 40 sano loogu talinayay 43 sano saad doonto ka yeeshay intaba adaa fadhiyay meesha Allah u naxariisto Xasan Guuleed hoos fadhiyay oo dalkan iyo dadkan baadi ka dhigay oo cid walba dhacay ma tiibad wali ku sii hal adag tahay ilaahay iimaanka ha kugu sugo ilaahay iimaanka ha kugu sugo sidani waa iimaan la'aan waa iimaan la'aan ee Allah isaga weyno waaxida iimaanka ha kugu sugade waxa kale oo oranaynaa ma jirtay Caaq Ismaaciil waad ismooday dalkan iyo dadkan inaad yeelatay baad u haysataa laakiin ceebtaadi baa iftay falxumadaadi baa iftay ficilkaagi foosha xumaa baa ifay dawaadiga maanta ceeboobay ee darkaysid shalay markii lagu han weynaana khalqu laaba soo bixi jiray
eed beenta ku dardari jirtay dee beentii raad ma laha lagu baray ha lagu baray waa lagu bartay dee haddii lagu bartay iska soco ha na dhaafa waxba nooma soo wadiinoo beenta iska daaya iyo ficilkan foosha xunleed wadiin iyo dhacan iyo boobkan aad kusii dhiiran tihiin idinka yeeli mayno dee annagu idinka yeeli mayno raggan askartana mid baan u sheegayaa hadday gaardakood yihiin iyo hadday jeer yihiin iyo hadday ciidanka kale yihiinba waxaan leeyahay dalkii dadka ha ku dhagaroobin halkan maanta aad ka muuqateen meeshiinii ma aha munaasabna idinkuma ahayn maanta inaad halkan timaadaan laakiin in idinka qudhiina layni haysto ayaa tilmaamteen ciidan beeleed inaad tihiinna waadna tusteen waa jeerta gaardakoodka iyo waxoogaa armeega laga soo guray oo weyrax soo dareeriyey weyrax isagii baaba iska weyraxsane sidii wiishii sidaa u weyraxayo wareegaye 5 tallaabo ka horeeya askartii soo idinka arkay xiifiniin wuxuu eryanaya balkaalay garo sidaas qiiq iskugu wada qarinayaan iyagoo ceeb iyo foolxumo meel walbi ay u taalo dhiilo sidii ukunta dhac meel walbi kaasa doonaysa dadka inaad tidhaahaan dad baa soo baxo dhalinyaradu aawe saamigeedii ay dalkeeda ku lahayd bay la adahay nasiibkoogii bay laayihiin wixii dalkooga ay xaq ugu lahaayeen baad wada weecsateene kaasaad leedahay dadka been baad ka sheegaysaa laakiin mid baan codsanaynaa annaguna bulshada rayidkee dhabta ah bulshada rayidkee dulman bulshada rayidkee xaqeeda doonaysa bulshada rayidka aan ku rabin adiga iyaguna waa inay soo baxaan kuwaaga waad u banaysay inay soo baxaan adigu aad raalli ka tahay ee been abuurka meelahan la marmaraya laakiin kuwa xaqa ku hadlaya ee ku dhawaaqaya ee doonaya isbedelka dhabta ana waa in albaabada laga furayo soo baxaan oo la arkaa reejibutow innaguna waa inaan ismuujinaa innagoo weerkii casaa xidhan innagoo dulman innagoo carruurteenni jeelasha ku jiraan innagoo gaajoonayna innagoo darxumo iyo silic iyo saxariir ka dharagnay innagoo xurriyatal qowlkii la caburiyey innagoo oon laynoo ogolayn xaqeenna innagoo oon laynoo ogolayn inaan ra'yigeenna cabirno innagoo oon laynoo ogolayn inaaban waddani nahay la diidayo inaan layna yidhaaho waddani baa tii waayo ninkii ka hor yimaada caaqa waddani ma aha waddaninimadiiyo daljacaylku waxay ku xidhan tahay inaad caaqa sacabka u tunto laakiin haddaad isaga tidhaaho ma doonayna isbeddel baan rabnaa waddani ma tihidde waa filinka iyagu dhigayaan la socdaya waa filinka iyagu siday u wadaan waddanigu xaq buu leeyahay inuu ku yidhaha kuma rabo dee caaq ismaaciil waddanigu xaq buu leeyahay isbeddel inuu doorto waddanigu xaq buu leeyahay inuu ra'yigiisa cabiro waddanigu xaq buu u leeyahay inuu ku yidhaha ismaaciil down haddaan ku leeyahay de waana kaa waddanisanahay anu adi iyo kuwa aad wadato downa waan ku leeyahay daanu down waan ku leeyahay ku talagal dee taana maxaad odhan down caawiya berri kuma rabna anagu waan kaa dharagnay xumahaaga waan ka dharagnay iyo ficilkaaga iyo qabyaaladaada iyo qurunkaaga iyo xoolihii dalkood daadahaysood meel kala geysay marka waxaan niga codsanaya ummadda reer Jabuuti indha laga baqa ilaahay bay ku yaaliin soo wada baxa xabadiyeyna guryahay nagaga hadhin aan xaqeena u soo baxno sida ay iyagu riwaayada u matalayaan inagu dhabtii baan anagu nahay anagu riwaayad ma taayadu waa xaq baan ku joognaa anagu dulmigaan diidaynaa cadaalad baan doonaynaa weeyaan tayadu isbedel dhabaan doonaynaa weeyaan dhac iyo boob iyo dhagar baan ka dhareegnay weeyaan ma doonayna haddii ismaaciil down baan leenahay dowladda dhammaanteeda down baan leenahay isbedel dhaba oo lagu reeyay ayaan rabnaa ee na dhaafa oo isdabagala dalkan aad ka dhigateen meel aad idinku leedihiin waan idinka diidnay dee caaq ismaaciil adigu yeetaa baraleelo too broklaamee kumbani kulelihi dayacan dalkiiyo dadka u daran dhufato naftan saarayda ee sixirka sir mooday een habeen seexanaynay waxa xun ku foogan waxaan idin leenahay mar iyo laba iyo saddex idinma rabnee baxa haddaad bixi weydiina de wixii aad kala kulantaan anaga waxbaa naga siinina shicibka reer Jabuutina waxaan leeyahay ee dulmidiidka ah ee xaqudirirka ah ee cadaalad doonka ah ka kaca fadhiga sida ay iyagu u soo baxeen xaq baa ina siiyay inaguna inaanu soo baxno haddii teena la diido adduunka marag inoo noqonaya de inaguna markhaati baan ka noqonaynaa
waa wixii aan doonaynay de isaguba uu ogolaaday kuwii filimka uu matalayay uu shashada kun la soo siiyay la soo dareeriyay maxaa kuwa xaqa ku dagaalamaya ee xaq dirirka ah ee doonaya inay dalkan iyo dadkan dhiciyaan ay dhibaatada ka saaraan loogu diidaya qowlkooga in la maqlo noo sheegi kartaa Caaq Ismaaciil Cosby Show de riwaayadaadi wataade waa Cosby Show de oday weynoo 90 jir oo Cosby Show ah ayaa harajaan fadhiyada oo Caaq Ismaaciil leeyahay رواية بألفية دائما سنة بعد رواية ألف ده مسلسل كيو دماغي وأند أوف ستوري وجيم أوفر والغوش شيء جيم أوفر بالجوية خلاص وين دماتي أرن كيو دماغي حاجة وجبو إن صعوتات حلقة نكتة أري دم كوتهاي وان كحيو بيننا ولي بنا محكمة دان كل تيك سنين كنت لقلتها أفرتان عسكري gaardakoodka iyo jeerta iyo militeerka iyo aygii balaqo ciidankiisa garanada cadcad soo galisay I love Djibouti aad ugu soo qortay waxaas dadka saari maayeen adeer Djibouti haddaad jeceshahood u turayso ka naxayso xilka dhig oo badbaadi xilka dhig waad ka dheregtood ku dhaqatay adoo qaawan baad soo gashay oo kursiga qabatay maxaad haysatay shalay markaan calanka qaadanay soo digi haawanayay maxaad haysatay alors nimanku aqoon baa defa ku sacabinaye runtu markay runteeda timaado si fiican baa la isku xisaabin Caaq Ismaaciil marka waxa weeyaan waxa aad umada reer Djibouti saaxada looga ilaalinayo dowladda reer Djibouti qurunkiiba maanta diideen umada reer Djibouti way damqadeen way ka badatay de ka yeeli mayna hadii ku nacnaye na dhaaf waxyeeladaada na dhaaf kuma rabnee na dhaaf anagu kuma rabno sandullana la iskaga kaaya dhigi maysid wax sandulla la yiraahdo dhamaatay Caaq Ismaaciil qarnigeen joogna qarnigii 22aad baa la joogay xageed sanka nooga galin xageed la haystayaal nooga dhiga annaga ciidan iyo calankan la inta Ilaahay ka sokayse ninka anagu rabnaan u dhiibanaynay de adiga maaha kaasi ku talagal kaasi adiga maaha soona dhigan maysid waa been soo dhigan maysid doorashada adigu ku jirtaana Djibouti kama dhacaysa de haddaan hore lagu waran aniga maanta iga maqal xal ma hay sida xilka wareeji waa dhab xal ma hay sida xilka wareeji waa dabubta qayaxan reer Djibouti markay soo baxaan ku dhawaaqayaan reer Djibouti maxay noo ballana inaan dalkeena iyo dadkeena dhacsano oo dibadaha u soo baxno layna arkada inaan wax diidayno afartan la soo dareeriyay mujtamaceena ka badan de arhadayna baqayn hasiida ayaan dadka reer Djibouti ada askarta hor dhigteed haysato ee ciidanka ku meerisay ee uga bacayso inay xaq ku hadlaan laakiin maalin waxa uu iman doonta askartu annagana soo raacaysa de wayna dhowdahay waqtiga askartu annagana raacaysay ciidankuna afarta adigu adeerka u tahay aday aqalkaaga fadhiyayaan laakiin kuwa dhabta u damqaday ee dhiban ee caruurtoodu meel ay galaan iyo meel ay wax ka cunaan ay leeyihiin ee ciidanka ku tilmaamtay annagayna soo raacayaan waxaan la umada reer Djibouti daliya dibad dalkeena aan dhaxsano waqtigeedii waa la joogaa saacadii way timiday dabayl caafimaad baa dadka maraysa nuur baa inoo baxay layr caafimaad dayax baa inoo ifay xaq baa ifay cadaalad baan doonaynaa dulmigaan diidaynaa down Ismaaciil Cumar baan leenahay xal ma hay sida xilka wareejina waa degdeg si degdegaad ku wareejin oon baryo lahayn oo qasaba ku talagaltaa ilaa shicibka wadan kale ciidan iyo calankana shicibka reer Djibouti baa leh ee ciishay ee kiishad gaajada ku xukuntay waxaan salaamayaa shacab weynahayga reer Djibouti ee dulman ee ciilan ee dhiban ayaan leeyahay fadhigaan ka kacno dal iyo dibadna aan muujino inayna rabin ila waa la ogyahay ma rabnee waxba yaan layna caburin ka yeeli mayna hadeed salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ballanteenu waa dibadda inagoo isa soo tunna hadeed yeynaan guryaha ku jirin beeni way dhamaatay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.